maanta wanaagsan isla taan ayaa nagu reebtaa tiraanyo iyo muuqaalo ur ku taalo leh oo inooga muuqda xitaa mararka qaar mugdigisha qaabku inooga muuqan karo mustaqbalkeenna. Waxa macaan oo quruxda badan oo aan haysanno marnaba qiimo nooma yeeshaan intaan xusuusan karno xusuusta murugada. Waase dabeecadda aadanaha inaan waxba u arkin wanaagga, maadaama aan mar walba ka baqayno xumaanta. Kheyr wax kaama dhibee shar ku tashayaa maqli jiray. Isbeddelka ayaa hagaajiyaha wax walba, sidaasi la mida noloshaada. Way wacnaan lahayd haddii markaad xoogaa joogto aad qalinka iyo waraaqada intaad qaadato xoogaa yar oo xisaabin aad ugu dhaqaaqdo qaabkay u socoto noloshaada, wixii hagaaji u baahan dib iskaga saxdo. Noloshaada fursad ku soo martay kuma bedelanto, isbeddel asameeda ayay ku bedelantaa. Taana ayaa ku saadaalin kartaa qaabkay u ekaan karayso. haddiiba raaligelintaada aysan waxba ka bedelin qaladka aad gashay, waxaasi raaligelin ma ahan, markaasi waa ku digasho. raaligelintu waa inay samaysaa isbeddel. Haddii aan taa la helinna waa raaligelin aan dhab ahayn. waxaad abuurato ama maanta aad sameedo ayaa ku saadaalin kartaa mustaqbalkaaga kuna qorshayn kartaa, balse haddii waxa aad abuurto ama aadan haysanba waa rajo markaa mustaqbalkaagu. balanta waa la wada qaadaa, laakiin sida loo wada qaado looma kala qiimo bato, ee sida loo kala oofiyo ee loo kala qiimo bataa. si kale haddaan u dhigo macno ma lahan sida loo ballan qaado, ee waa sida laisugu nagaado. naxariistu way ku qurxisaa sida uu doono muuqaalkaagu ha u ekaado. naftaada ku ammaan maalmaha adag ee kula soo martay ee sida wadajirka ugu soo guulaysateen marka xaaladaadu adkayd. qadarintay u qalmaan in ka badan marka aad siidid ayay ku dhaawacaan dhaawacaadan u qalmin. qalbigaagu siduu doono ha u wanaagsanaado, wanaaggu xad buu leeyahay. waan ku qasban tahay dadka qaar siday kula dhaqmaan inaad ula dhaqanto, xaaladdu sida doontaba ha noqotee. beero wanaag xitaa meel uusan ku habboonayn ku beero, maxaa yeele wanaaggu waa wanaag mar walba, marnaba kuma khasaareedid. laga yaaba in qaarkood ka hebaystaan lebiskaaga, gaarigaaga, gurigaaga iyo qaabka guud ee noloshaada. u sheeg oo dariinsi inaad leedahay qoys quudinkaa sugaya, eedan lahayn bulsho aad indhahooda quruxdooda ku farxad gelisa. qiimahaaga ma ahan cajabgelinta indhaha dadka, ee waa kor u qaadida damiirkaaga. haddii aad leedahay damiir wanaagsan, waxaa kor u qaadma qiimahaaga. waxay dhaheen dhoolacadeen walba dhab ma ahan, dhiilo ayagoo wata iyo dhoolacaddeeyaan. waxay kaloo dhaheen ilin walba xanuun la hubo ma ahan, xitaa farxadda waa lala ilmeeyaa. sidaasi la mida dhagarta. dhibkooda ayay bulshada u sheegtaan, dhibkooda ayay baraha bulshada noogu sheegaan, dhibkooda iyo iskudigashadooda ayay noo soo bandhigaan, dhibaatadooda ayay iskula dhaga hadlaan iyagoo adeegsanaya baraha bulshada iyo aaladaha kale ee lagu xiriiro. waa hubaal inay xanuunsanayaan, doonayaan in xanuunkooda xal u helaan, balse xalka marka aad ka raadisid meel uusan kaa jirin, macnaheedu waa inaad abuurayso xaddiga in la eg dhibka ku haysta, ama mid ka mid ah ama ka badan. waxaa ku dhihi lahaa dhibkaaga alla u sheego, maya baraha bulshada. taasi ugu dhici mayso, macnaheedu waa inaad la bartamayso awood aan muuqan ee ku qoshaysa sigaga dambe ee noloshaada sida aad ahaan doonto. sidoo kale waxay la micnan tahay ku digashada qof awooddaada kala lahaa, balse waayuhu iyo wakhtigu halkaa dhigeen. dunidu waa wareegto, kolba dhinac kuu doortaa ama kuu wareejisa. shalay sidaad ahayd maanta ma tihid, maanta sida aad tahayna shalay ma ahayn. taasi macnaheedu waa inaadan haysan damaarad kaa difaaci kartaa xaaladdu qof kale ku jiro. laga yaaba inaad ku digato. dulqaadka ma ahan intaad wax sugi karto, ee waa dhaqanka iyo diranaanta la timaado intaad dulqaadanayso. ha aaminin weligaa waxa aad iskula sheekaysatid marka aad keligaa tahay iyo marka aad tiraayansan tahay. in aad tahay qof deggan misena sugashada ku fiican kama dhigin inaad tahay qof dulqaad badan. inta aad sugashada ku jirtid, qaab dhaqankaaga wanaagsan iyo dulqaadka aad sameedo ayaa ka dhigan ama tilmaam ka baxsha sifada inaad tahay qof dulqaad leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.